talagalay inay ku shaqeyso xukuumadda ayaa ka kooban xarunta xukuumadda, xafiiska iyo hoyga ra'iisul wasaaraha, guriga martida iyo qaybo kale oo muhiim ah. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta kormeer ku tagay dhismaha xarunta xukuumadda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo heer gabagaba ah maraya. dhismahan oo hore u ahaa xaruntii xisbiga ayaa loo dhisay qaab casri ah waxayna ku taalaa bartamaha magaalada, taasoo xukuumadda iyo ra'iisul wasaaraha u dhaweynaysa bulshada, qaybna ka qaadanaysa dhismaha iyo amniga caasimadda. Ra'iisul wasaare Rooble oo warbixin ka dhageystay injineerada gacanta ku haya dhismaha xaruntan muhiimka ah ayaa ku booriyay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo baahan yahay in lagu soo gabagabeeyo si ay ugu shaqeyso xukuumadda Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar Al-Cadaala ayaa tilmaamay in shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda ay ahmiyad gaar ah u leedahay in xukuumaddu ay ku shaqeyso xarun ku taala bartamaha magaalada Muqdisho. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallaahu alayhi wasallam. maanta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble waxa uu kormeer ku tagay xarunta cusub xukuumadda federaalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku shaqeyn doonto halkaan uu ku leeyahay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda ay ku shaqeyn doonto haddii Ilaahay uu yiraahdo. mashruucan waa mashruuc weyn oo heer gabagaba ah ku dhow. ra'iisul wasaaruhu waxa uu soo maray qaybaha ay ka kooban tahay xaruntan oo isugu jirta xafiiska ra'iisul wasaaraha, deegaanka ra'iisul wasaaraha iyo guriga martida xukuumadda, masaajidka weyn oo halkan laga dhisay. runtii waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala mashruucan inuu si dhaqsi ah u dhammaado halkan oo ku taala bartamaha magaalada Muqdisho oo ah halkii hore loo dhigi jiray xarunta xisbigana ay noqoto meel xukuumadda Soomaaliyeed ay ku shaqeyso, taasoo runtii maaragtay fursad weyn u noqon doonta amniga magaalada iyo sidoo kale fududeynta hawlaha xukuumadda iyo adeegga dadweynaha inta